Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan maanta idin wadaagayaa qodobo kaa caawin inaad qaatid go'aan aad u wanaagsan. Haddii aad xiisaynaysid ama aad jeceshahay inaad qaatid go'aan aad u wanaagsan, isla markaana uu go'aankaagu noqdo mid guuleysta, muuqaalkan waa kaagii. Waxaan kugu soo bandhigin qodobo kaa caawinaya inaad qaatid go'aan aad u wanaagsan. Haddaba inta aan muuqaalka bilaabin, haddii aad channelka cusub tahay subscribe saar, sidoo kale fiidiyoga like saar una share garee asxaabtaada. waad mahadsan tahay. Kusoo dhawow muuqaalka oo faahfaahsan. Qodobka koowaad: ka fikirida in badan go'aankaaga. Haddii aad ka fikirto go'aankaaga in badan oo aad maskaxda ku celcelisid, kabacdi waxa kuu soo baxaya go'aan aad u wanaagsan. Isla markaana haddii aad qaatid go'aankaas, wuxuu noqonayaa go'aankaas mid guuleysta. Laakiinse haddii aadan ka fikirin go'aankaaga oo aad daqiiqadiiba ku dhaqaaqdid, waxaa laga yaabaa inaad ku fashilmatid. Ogow, inta aad go'aanka qaadanaysid, ka fikir sida aad uga gudbi lahayd caqabadaha uu leeyahay go'aankaas. Tusaale, haddii aad wax samaynaysid, si aad uga fikir wixii caqabadaha uu leeyahay. Adiga oo aan ogaan caqabadaha ka hor imaanaya, ha ku degdegin go'aankaas. Inta hore ka fikir caqabadahaas sidaad uga gudbi lahayd. Qodobka labaad: inaad la kaashatid go'aankaaga qof ka way aragsan. Haddii aad go'aankaaga la kaashatid qof ka way aragsan, waxay kaa saacidin in go'aankaagu uu noqdo mid guuleysta. Sababtoo ah qofkaasi wuxuu ku siin taliyo tusaale kaa saacidaya inuu noqdo go'aankaaga mid guuleysta. Labadaas qodob oo aan soo sheegnay, haddii aad sida ugu wanaagsan u qaatid, waxaad noqon doontaa qof go'aankiisa uu guuleysto. Sidoo kale, barnaamijkan waxaan kasoo diyaarin doonaa qayb labaad. Qaybtaas labaad oo kasoo qaadanayno qodobo kale oo ka caawinaya qofka inuu qaato go'aan aad u wanaagsan. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Waxaan muuqaalka idin soo jeedinaya anigu ah Cabdirashiid Maxamed Cismaan. Intaan ku kulmano kulanti dambe xiise leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.